baydhabo ayaa waxaa lagu qabtay doorashada mid ka mid ah 69 kursi ee xubnaha aqalka hoose ee hore loogu tartamay balse uu mid ka mid ahaa kuraastii muranka ka dhashay ee dib loo soo celiyey markii uu ku soo baxay Sheekh Shaacir Maxamed. goobta doorashada kursiga la soo celiyey tartankeeda uu ka dhacayay waxay ahayd xarunta madaxtooyada ee magaalada Baydhabo, waxaana goobjoog ka ahaa saraakiil ka socotay xafiiska siyaasadda ee UMSOM, guddiga doorashada heer federaal kan koonfur galbeed, wasiiro ka tirsan maamulka iyo xubno kale oo kormeeryaal ahaa. feejignaan taxadir dheeraad ah iyo qaab control oo u muuqday mid ay la dhacsanaayeen saddexda musharax ee kursigan u tartamaysay ayaa goobta laga dareemayay, waxaana yaraa dhaqdhaqaaqa laga samayn karayay xarunta doorashada ay ka dhacisay. tartamayaasha ayaa kala ahaa Sheekh Shaacir Maxamed, Xaliimo Maxamed Cabdi iyo Mukhtaar Xasan Yarow, waxaana ergada wax dooranaysay tiradooda ay gaaraysay 51 ergo, balse waxaa kursigan oo ahaa kuraasi la soo celiyey mar kale ku soo baxay Sheekh Shaacir Maxamed oo baarlamaankii hore ka tirsanaa isla markaana mudanihii hore ugu soo baxay ee la soo celiyey ahaa, wuxuuna helay 34 cod. Mukhtaar Xasan Yarow wuxuu helay 16 cod, halka Xaliimo Maxamed Cabdi aysan waxba helin, halka kale ee codna la sheegay inuu ciladoobay. xubin ka mid ah guddiga doorashada ayaa natiijadii ku dhawaaqday. Sheekh Shaacir, Sheekh Ahmed, iyo Xaliimo Maxamed Cabdi iyo Mukhtaar Xasan Yarow. Sheekh Shaacir wuxuu helay 34, Xaliimo Maxamed Cabdi waxba cod maysan helin, Mukhtaar Xasan Yarow wuxuu helay 16 cod, waxaa halaabay 1 cod. wadarka guud ee ergada waa 51, saa darteed kursigan waxaa ku guuleystay Sheekh Shaacir Axmed. dareenkayga maanta haddii aan cabiro aan faraxsana ilaahay aan mahadnage dadka walaalahayga oo juhdiga ka bi doorashada inay dib u qabsoonto inkastoo markii hore doorashadan saxalaaleen dhiidi dad wal tabadow oo fadaay kursiga dacwo suubiyeen oo muddo haatan la ku wareegi 3 bilood haatan maanta yani dib suurtagal in ilaahay weynaa waaxid ka ahaa dib ilaahay in ka guulay ilaahay aan ka mahadnaga dadka walaalahayga ee guddiga federaalka saaxiibaday iyo guddiga doorashooyinka federaalka iyo guddiga doorashooyinka heer gobol koonfur galbeed juhdiga ku biyeen maalmihii una dhaafni hamiige fadheen in khilaafaadkii gobolka ka jari saxan yaa mahadnaga dareenkayga faylay farxad ba wal ku korna ma sheegay dad weynaha reer koonfur galbeed ama Soomaaliyeed kursigun kuraasta kala wala dheeri sababtoo kursi lama goor la doorday waay lamada goor baan leh ka bay marka saas dartee kursi yani doorasho korfuul waay sida aan aaminsana marka insha Allah taala sida barlamaan leeyahay dooradi ya insha Allah taala wala ilaahay ila qobada oo ka eedan dadkan iyo dalkan in aan qobada yaa ka dadaale ilaahay weynaa waaxid ka